mooshinkii shalayto baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay oo ahayd in laga qabto dalka PDP wall oo dhibaato ku haysa dekada Berbera iyo Boosaaso waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana arrin loo baahnaa baarlamaankuna waxay qaateen shalayto arrin taariikhi ah oo markii ugu horeysay baarlamaanka Soomaaliyeed ay naga dhiciyaan dal shisheeye oo weerar ku ah dekadahaygii iyo Itoobiya iyo wadamo aan fahmi weyne waxay yihiin waana arrintaas waa arrin qof walba oo Soomaaliya oo damiir leh taabanaysa in dalkayga Itoobiya iyo ku gargartamaan PDP wall taasuna waa wax micnaha magaranaysa dadku inuu dalku damiir leeyahay oo xildhibaano fiican dalku u joogan maanta bay cadeeyeen annaga shacab ahaan oo ku taageersanahay waana ku garab galeynaa kor istaagida dekadahayaga in la boobo waxaan soo dhaweynayaa go'aankii geesinimada lahaa ee baarlamaanka sharafta leh ay shalay qaateen oo ansixiyeen shirkadda DP World looga kansalay gudaha Soomaaliya runtii shalay waxay muujiyeen baarlamaanku inay si dhab ah uga turjumayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku ammaanaynaa inay yihiin baarlamaanka ugu horeeyay oo codka shacabka ku hadla baarlamaanka Soomaaliyeed runtii waxay sharaf darro ku tahay DP World inay waddanka inta iska soo gasho maamulato jiritaankeenna iyo haddii aan la korinayahay dadnimadayadaba DP World haddaysan soo marin federaalka aysan aqoonsanayn annaguna ma aqoonsanin maxaa yeelay annagu waxaan nahay naloogana taliyaa federaalka hadday DP World u aqoonsatay maamulada inay dowlado gaar yihiin waxay taasi ku muujinaysaa inay rabto inay kala gogeyso oo kala fogeyso ummadda Soomaaliyeed annaguna hadeer xukuumaddan waxay ka shaqeysaa waa soo dhaweynta isku keenida ummadda Soomaaliyeed oo isku soo hilowday waana taageersanahay xukuumaddeena iyo madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena waxaana leenahay go'aan geesinimo leh buu ahaa go'aanka shalay baarlamaanku ansixiyeen hore loo socdo annagu waxaan nahay dad ka tirsan dowladda federaalka maamulka Puntland go'aanka geesinimada leh oo dowladda federaalku ay qaadatay maadaama aan hoos tagno waa inay ku taageeraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre aad baan ugu mahadcelinaynaa baarlamaankana waxaan leenahay hore ha u sii socdeen dalka ha dhiseen go'aan geesinimo leh buu ahaa go'aankii shalay dowladda federaalku ay qaadatay mooryaan badeedka DP World oo ku soo duulay geyga Soomaaliya doonayana inay khayraadkeena qaataan dalkeena ku soo duuleen badeena ku soo duuleen qarnimadeena ku soo duuleen dadnimadeena ku soo duuleen adduunyada waa la iska daba imaan doonaa laakiin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa go'aankii federaalka u qaatay waxaan leenahay madaxweyne Cabdullaahi Cali Gaas go'aankii dowladda dhexe ay qaatay ha ka hor imaanin annaga Farmaajo iyo Khayre go'aamadooda noo go'aana waa inay naga baxdaa DP World karaamadeenna iyo sharafteenna iyo Soomaalinimadeenna waxay ku jirtaa DP World oo Soomaaliya ka baxda dekad ma rabno balbala yar baan ka jecelnahay DP World waxay noo dhistay balbala yara meel xun oo laash ku soo xirta baan nooga sharaf badan nooga karaamo badan DP World waxay wadato midnimada Soomaaliya waa muqadas go'aan wax ku ool ahaa waana taageersanahay waxaan rabnaa marka in laba arrimood la kala saaro DP World iyo dowladda Imaaraadka Carabta DP World waa company faa'iido doona wixii faa'iido uu ku helayna waa sameeynaya oo profit ku helayo company-ga marka waa company laakiin dowladda Imaaraadka wax badan baa ka dhaxeeya in la kala saaro marka baan u baahanahay cadiifada iyo kuleelka kaliya uu san qaadin oo aynu u qabno DP World marka waxaan rabaa wax badan laftigeenu inaan xeerino oo maaragta xanaaqa iyo kuleelka jiraan uu san dhaafin siyaasadna inaan ka yeelano arrimahaas waa loo baahan yahay ala kulli xal waa soo dhaweynaa go'aankii shalay waana taageersanahay anigu waxaan sii qabayo kale Soomaaliland in loo daayo barnaamijkaasi ay kulay waa horumar soo kordhay de Soomaaliyana waa kala gogoday maanta qolo walba waxbay sameystay qabiil walba waxbuu sameystay marka waddanku inuu federaal noqdo waa loo baahan yahay hal laga saaro percentage-ka ku jiro 19 ayo nimankan dariska nala hal laga saaro sidaasaan qabaano Said Ali Nuur Cabdi Said Ali Taat Somali Cable TV gaalkacay